waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar haddii muuqaalku ku cajab geliyeen sidoo kale like inoo saar sheertuna waa inoo muhiim maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaara jilaaga caanka Akshay Kumar oo u dabaaldegaya maanta sanad guuradiisa ama sanad guurada dhalashadiisa 55aad saaxiibayaal balse inta ugu gudagalin mar labaad iyo mar saddexaad aan ku codsanayna janaalkeena subscribe inoo saartan soo dhawaada saaxiibayaal Akshay Kumar waxa uu ka mid yahay aktarada aadka looga jecel yahay markay imaado aflaamta ama aktarada aflaamta sameeya ee gudaha dalka India. Akshay Kumar waxa uu dhashay markaan eegno maanta oo kale 9 September sanadii 1967. Da'diisu waxa weeyaan 55 jir weeyaan ninka lagu magacaabo Akshay Kumar saaxiibayaal. Waxaanu ku dhashay magaalada Amritsar ama magaalada Amritsar ee gobolka Punjab ee dalka India ayuu ku dhashay. Akshay Kumar abi waxa lagu magacaabaa Hari Om Bhatia halka hooyadiisa lagu magacaabo Aruna Bhatia. sidaan xogta shalay idin kula wadaagnane waxa geeriyootay hooyadiis Aruna Bhatia ama hooyadiis waxay geeriyootay maalintii shalay ahayd. Akshay Kumar waxa la dhalatay hal gabarta oo iyadana lagu magacaabo ama gabar waxa lagu magacaabaa Alka Bhatia ayaa lagu magacaabaa saaxiibayaal walaashiis. Akshay Kumar waxa uu guursaday atrishada caanka ah ee Tabikal Khanna sanadii 2001 ay is guursadeen waxayna u dhashay laba caruur ah kuwa oo lagu kala magacaabo Nitara iyo sidoo kale Araf. haddaan eegno aktarada ama Akshay Kumar iyo aktarada uu ka taageero dhanka Bollywoodka ama adduunka waxa uu aad u taageeraa dhanka Bollywoodka jilaaga caanka Amitabh Bachchan ama Aldheer waxa uu taqaanaba dhanka iyo dalka Shiinaha waxa uu aad u taageeraa ama aflaamta dhanka kale waxa uu aad u taageeraa ninka lagu magacaabo Jackie Chan dhanka atrishada waxa uu aad u taageeraa atrishadii geeriyootay Zardofi iyo sidoo kale Kareena Kapoor. Akshay Kumar haddaan eegno aflaanjilista waqtiga uu ku soo biiray waxa uu ninkan ku soo biiray sanadii 1991 filimkiisii ugu horeeyay waxa lagu magacaabaa Saugand waxa uu noqday filim flop ama filim guuldareysta. Akshay Kumar iyo haddii aan saaxiibayaal aan sii eegno kontankiisa ama xaqiiqooyin u gaar haddaan markaan u dadegnana ama xaqiiqooyinkiisa haddaan eegnana waxaan idin kala wadaagi doonaa ilaa iyo xaqiiqooyin gaar ah 5 xaqiiqo saaxiibayaal. xaqiiqada koowaad Akshay Kumar waxa leeyahay Akshay Kumar hadda kormar ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii uu sameeyay fal anshax xumo ah kadib markii uu xaaskiisa Tabikal Khanna ka codsaday inay sinyeerka ama jinyeerka kaga furto dadka hortooda intii ku guda jireen xaflad ama shirkad Lakshmi Fashion lagu magacaabo xaflad ay ku soo bandhigaysay fashionka yani waxyaabaha modelka ayuu sameeyay arintaas xabsiga ayaa loo taxaabay laakiin markii dambe waa laga soo diiyay. xaqiiqada labaad haddaan eegnana Akshay Kumar waxa la leeyahay waa mid kamid ah aktarada doorka labada waji aflaamta ku sameeyay aflaam badan ayuu ku sameeyay aflaamtaas waxa laga xusi karaa oo doorka laba waji uu ku sameeyay filimkii caanka ah Jay Kishan ama Master Bond lawa Akshay Kumar Julia Master Calendar 1 ay Soomaalida dhigi jireen sidoo kale Aflaadon Qilaada 420 Jandi Joke Jaina film lagu magacaabo sidoo kale filimkiisii caanka ah Rodi Rator ee la jishay gabadhii Snakshashin. xaqiiqada saddexaad eegnana saaxiib Akshay Kumar waxa la leeyahay ayaa sabab u ahaa inuu Ajay Devgan aflaamta ku soo biiray sanadii 1992 sababta aan saas u leenahay waxa weeyaan Akshay Kumar waxa uu ahaa doq koowaad ee filimka Power Arganti oo Ajay Devgan lagu soo anbixiyay laakiin Akshay Kumar ayaa codsaday in lacag badan la siiyo directorka filimkaasina waa uu ka diiday maadaama Akshay Kumar xilliga uusan ahayn actor yani sida loo caan u ahaa saas darteed director filimka waa uu diiday lacag badan uu ku siiyo saas darteed waxa uu go'aansaday in Ajay Devgan uu filimka uu ku soo daro ama filimkiisa uu dhiibo sida darteed Ajay Devgan waxa inuu aflaamta ku soo biiray sabab waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Akshay Kumar. qada afraad saaxiibayaal Akshay Kumar ayaa ah actor dareen ahaan aad loogu tiriyo inuu yahay qof wanaagsan sidoo kale Akshay Kumar ayaa weli haystay sida la sheegay gurigiisii ugu horeeyay uu gatay markii uu aflaamta ku soo biiray xitaa waxa uu haystaa gaarigii iyo mootadii ugu horeysay oo iibsaday ama ka iibsaday lacagtii ugu horeeyay oo ka shaqeeyay aflaam sameeysta ama shaqadiisii aflaamta. markaan eegno xaqiiqada ugu dambeysana Akshay Kumar waxa la leeyahay doorka boolisnimada waxa uu ku jiray 15 filin. markaan haddaan eegnana aflaamtiisa iyo aflaamtiisa kuwooda ugu caansan ilaa dhowr aflaam ayaan ka xusi doonaa ama aan eegi doonaa waqtiyada ay soo baxeen. filimka ugu horeeyay aan eegi doono waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Suhaag oo soo baxay 94 Asia Ajay ay qayb ka wada ahayn film lagu magacaabo Baby oo 2015 soo baxay sidoo kale Qilaad filimkiisii taxanaha ugu horeeyay Qilaad waxa uu soo baxay 92 waxa kale oo aflaamtiisa kamid ah Rastam oo 2006 soo baxay 16 soo baxay filimka lagu magacaabo Jolly LBB2 oo 2017 soo baxay Mohra oo 94 soo baxay Qaaqay oo 2004 soo baxay Holiday oo 2014 soo baxay Gabbar Isbaag oo 2015 soo baxay dadkan oo 2000 soo baxay Namaste London oo 2007 soo baxay Sangaraj filimka Akshay Kumar Judan oo 99 soo baxay waqti
Party oo 2005 soo baxay aan qeyn filmka camalnimada uu ku jilaa si Gorof oo 2002 soo baxay My Khiladi to Anariel 94 soo baxay Garam Masala oo 2005 soo baxay Itiraz oo 2004 soo baxay Vera Hiravi oo 2005 soo baxay filmka lagu magacaabo Mujishati Garoonka 2004 soo baxay Welcome oo 2007 soo baxay Sabse Baadi Khiladi oo 95 soo baxay Master Mrs Khiladi oo 97 soo baxay Ajnabi oo 2001 soo baxay Khiladiyoonka Khiladi oo 96 soo baxay Zinga Isgin oo 2008 soo baxay Dilto Bagiro 97 soo baxay Janor oo 99 soo baxay Saugandi oo 91 soo baxay Janiman oo soo baxay 2006 iyo Dilagi 94 soo baxay Hey Baby oo 2007 soo baxay Rodi Rator oo 2012 soo baxay Daisy Boys oo asigi John Abray 2011 soo baxay Awara Bagal Devana 2012 soo baxay Houseful 2010 soo baxay Waqti Hamara 93 soo baxay Dost oo 2005 soo baxay Qadi Metha oo soo baxay 2010 Khiladi 420 oo 2000 soo baxay Dinden Dana film lagu magacaabo 2009 soo baxay konton film weeyaan oo aan kor idinkaga soo xusna saaxiibayaal haddii aan eegna abaalmarinada uu haystane waxa ugu waaweyn saddex abaalmarin ayuu haystaa dhanka filmfare laba abaalmarin ayuu ka haystaa waxaan lagu kala siiyay filmkii ajnabiga Kabalaadarka ugu fiicnaa ku qaatay 2000 iyo sidoo kale Garam Masala oo 2006 lagu siiyay Kactaroli ugu fiicnaa abaalmarinta National Film Award wuxuu ku qaatay filmka lagu magacaabo Rustam sanadii 2016 ayuu ku qaatay saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa xogtii iyo xaqiiqooyinkii aan kala wadaagayna Jalaaga Canka Akshay Kumar fadlan haddii aad janaalkeena ka heshay ama aad muuqaalkan ka heshaan saaxiibayaal laakiin oo saar janaalka ku cusubtana subscribe inoo saar waad mahadsantihiin saaxiibayaal